وزير كحجانك وزارة الرماها جودها وزير الدولة وزارة تمرت معدنته وزير الدولة وزارة قرشينته وزير كحجانك وزارة guddiga doorashooyinka gabdhaha xildhibaanada ah oo qiimaha iyo qaayaha badan ururada haweenka la taliyaha madaxweynaha luul tiimka Sweden looga yimi oo lungo iyo aamin ay kamid yihiin dhammaan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan rabaa hal qodob oo weyn oo muhiim ah horta inaan ku bilaabo oo ah shirkan maanta hadafkiisa koowaad oo aan isugu nimi waxa weeye doorashada qof iyo cod inay hirgasho gabdhuhuna ay ka qayb qaataan waan ogahay gabdho badan baa jooga ururo badan ka soo baxay ma ahayn hadafku waxa weeye muhiimadda ugu weyn gabdhuhu inay soo baxaan oo doorasho galaan qodobka ugu weyn waxa weeye oo lambar 1 noo ah in gabdho badan ay golayaasha deegaanka ku soo baxaan gabdho badanna ay ka mid noqdaan maayarada soo socda taas waa tan ugu muhiimsan tan kale oo aan ku darayo waxa weeye oo aan gabdhaha leeyahay gabdho waxaan la ka rabaa maalinta ay bilaabato isdiiwaangelintu in la isdiiwaangeliyo maalinta codayntu timaadana in la codeeyo gabdhuhu marka ay soo baxaanna in gabdhuhu ay u tartamaan inay helaan maayaro marka qofku hadafkiisa uu meel weyn geeyo wax walba uu raadinayo uu helayaa taa waxa kale oo aan ku darayaa in wasaaradda haweenku ay mar kastaba u taagan tahay baahiyaha ay gabdhaha reer Puntland u baahan yihiin inay ka qayb qaato wasaaraddu oo qareemista ay lambar 1 noqoto laakiin gabdhaha iyaga waxa laga rabaa qofku dadaalkiisa la yimaado iyadoo wasaaraddu garab taagan tahay haddii aadan dadaal la imaan qofku inuu soo baxo waa adkaanaysa gabdhuhu sideedaba waxay ku yihiin caan oo lagu og yahay gabar kastiba meel kastaba ha joogtay si gaar ah gabdhaha reer Puntland gabdhuhu waxay leeyihiin dareen dawladnimo dareen naxariiseed dareen u turid dalka ah iyo dadkaba waa ogtihiin dalka waxa ka soo qayb qaatay dhismihiisii waxa weeye haweenka reer Puntland iyo dhammaan haweenka Soomaaliyeed tan ku xigta waxa weeye gabdhuhu ay leeyihiin daacadnimo gabdhuhu waxay daacad u yihiin shaqo kasta oo loo dhiibo inay qabato gabadhu ay daacad u tahay oo aysan wax khiyaano ah iyo musuqmaasuq qaba midna aysan gelin tan kale gabdhuhu waxay leeyihiin dulqaad ay wax badan iyo caqabado badan ay u dulqaadanayso tan ugu dambaysana waxa weeye gabdhuhu waxay ku ammaanan yihiin ammaano wixii loo dhiibo inay gabadhu sida ay tahay ay u hayso shirkaanu waxa uu inoo socon doonaa 3 bari maanta inoo furmay oo 28 bisha ah 30ku inoo xirmaya si gaara maanta waxaan halkan uga baaqayaa oo aan cod u diraya dhammaan ururada siyaasadda ee ka jira Puntland in gabdhaha ay siiyaan dowrka ay budnaayeen waxaan kaloo codsanayaa guddiga doorashooyinka hawl badan bay qabteen gabdhaho isku duubanna way garab istaageen doorashadu horena aad bay u garab istaageen oo waxay sameeyeen inay close list ay gabdhaha u sameeyaan iyadoo adkaan lahayd gabdho badan inay soo baxaan waan uga mahad celinaynaa dadaalka ay u muujinayaan gabdhaha reer Puntland laakiin gabdhaha waxaa la dhahaa gabdhuhu isma inda buuxshaan anigu taa in kastoo aanan aaminsanayn laakiin waxaa la rabaa markay codaynta timaado in gabar dhisto in gabar garab istaagto haddaa gabar garab istaagtid macnaheedu ma ahan haddaa gabar garab istaagto macnaheedu ma ahan wixii aad heli lahayd gabadhaas inay helayso gabadhuna way heli adna maalintaada aad soo istaagtid baa helaysaa waliba waxay ku noqonaysaa baraarujin
maanta gabdhaha siyaasadda waynu ku yarnahay dowr badan kuma haysano shaqooyinka dowr badan kuma haysano wax bedeli kara waxa weeye hirgelinta doorashada qof iyo cod tusaale waxaan idin soo qaadayaa gabdhaha maanta ku jira golayaasha deegaanka waxa la idinka rabaa waxa weeye golayaasha aad ku jidhaan gabdhaha guuleystay number 1 inaad ka shaqeysan danta gabdhaha waa tan lagu doorto ugu horeyso horta waa taas tan labaadna aad gootid waajibaadkaagii kale oo aad xaq u lahayd waad mahadsantihiin walaalayaal ka soo qaybgalka hadalka inaan ku badiyo mar raba insha Allah waxaan rajaynayaa shirkan maalinka inoo dhamaado 30 bisha in qodobo mira dhala oo dhammaan haweenka reer Puntland ay ku qancaan lagana faa'iideysto inay ka soo baxaan waana mahadsantihiin walaalaha qiimaha iyo qaayaha badan wax waliba caqabad ay leeyihiin bilowgeeda hore laakiin uu adkaysi iyo in wixii laga dhabeeyo baa looga gudbaa insha Allah aad iyo aad baa u mahadsantihiin waana inoo furan yahay shirka